Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan asxaabteyda qaaliga kusoo dhawaada YouTube-keena Kayf Bashiir. Waa anigoo ah Kayf Bashiir. Intii la joogtay dhammaantiin waa mahadsantihiin, intii igu soo biirtana sidoo kale idinkina waa mahadsantihiin. Asxaabta qaaliga maanta waxaa sameyn doonaa laba lug oo hilib ari ah, waliba hilibka dheelo waaye laba lug oo yaryar oo hilib ari oo dheelo ah oo foorna aan ku sameyn doonin oo ku sameynayo burjka. Hadaa haysid waa isticmaali kartaa birta barbecue lagu sameeyo, hadaa haysatid birtaasna hadaa haysid oo ku sameysan kartaa. La socod wanaagsan. Foorna waa inka badbadiyay maanta wax ma foorneynayay birtaas ku sameysan doona, waliba dhuxulaa lagu sameynaya. waa arki doontiin asxaabteyda qaaliga. haddana waa bilaawnayna baaquliga soo qaatay asxaabteyda. hadda waxaa ku darsanaya hal qaando oo filfil soo tunta ah, sidoo kale waxaa kaloo ku darsanaya paprika. waa u jeedin laba qaanda ku darsaday. sidoo kale waxaa ku darsanaya xawaajiga chicken masala, asigana sidoo kale hal qaanda ku darsaday. sidoo kale weelkan waxa igu jiro haruud, hal qaanda ku darsaday. xawaajigaas kale laba qaanda ku darsaday. waa xawaaji aan guriga u isticmaalo. sooskaas isticmaalaya supermarketyada dhan waa ka heli doontiin. laba qaando oo sooskaas ku darsanaya. asxaabteeda waxaa kaloo ku darsanaya mintiga caleenta nacnaca, ayadana sidoo kale oo laba qaando ku darsanaya. bedelkiisa kabsara u isticmaali kartaa. sidoo kale waxaa haystaa soya sauce, asigana laba qaando ku daraya. waa qaando iyo wax yar, laba qaando ma dhamo, qaandii wax yar. sidoo kale waa isku walaaqeynaa. waxaadan dib ugu soo darsaneynaa cusbo, hadaa jumbo isticmaali kartaa. muhiim ah inaad cusbo bas isticmaashid, jumbaha waa ku darsan kartaa. hadda waxaa kusoo qaadanaya cusbo shiidan oo hal qaando ah. kadib intaas isku walaaqeynaa, si fiican isku dhex gelinayna. weelka iska qaloociyo wax yar saa oo xawaajiyada wax dhan si fiican isku dhex geliyo. kadib hadaa uu iska dhex gashan yahay, asxaabteyda qaaliga hadda hilibka soo qaadanay waa sarsareena ilaa lafta gaarsiinaysa. meelaha aad sarsartidna toonta meesha igu diyaarsan aad gelgelin doona. hadda qaybtan sidoo kale markaa sarsaro dhinaca kale u gadina, ayadana sidoo kale u sarsaraa. u jeedin sidaas u sarsaray. toonta gagashanayna iyo xawaajiyadii waxaysanay korka marnayna. u jeedin marka hore xawaajiyadii isku soo dardarnay korka saas u marnayna. bacdaas waxay iga caawinaysaa farahayga inuusan iga halaabin. xawaajiyada kala raac camal leeyihiin, haruud camal marka ku dartid cijiyaha kaaga halaabayaan. bacdaas u isticmaalay teemna waaye mid la tuuray. saas u wada marmarinayna. waxaa rabaa hilibka lugta dhan inaad kala gaargaarsiisid, aad ku masaaj garaysid, si fiican u marisid. dhadhanka iyo xawaajiyada wax dhan inay lafaha ka galaan loo baahan yahay. hadda markaa qaybtan soo marino sidoo kale waa soo gudinaynaa. qaybta kale asaas u marinaynaa. gacanta u jeedin saas ugu masaajeynaysaa. toontii aad iga baxdaa soo ceshanayay. kadib saas hilibka dhan kala gaarsiinaynaa. meel rabo meel inuu ka xawaajiya la'aan ahaado, meelna wax ka marsanaado. saas ugu masaajeynayna lugta dhan. meel dhan mal rabo, meel cad dhan mal rabo, meesha dhan inaa xawaaji lahaada loo baahan yahay. waa u jeedin toonta saana u isticmaalaya. meelaha dildilaaciisa dhan mise aad jeexjeexday aad gelgeshanaysaa. saana u gelgelinaya. kadib markaas saas u gelgelisid warqada ku duuduubaysaa. waa arki doontiin inta warqada ku duubi doono. bacda hadda waa iska soo bixiyay gacmaha. kadib warqadana hadda ku duuduubay. waxaa isticmaalayna hadda warqada. intaan warqada waxay kaaga difaacaysa aluminiumka dabka uu soo gudbinaya. warqada dabka madowga ku dhici lahaa hilibka warqada ka difaaci doono. waa arki doontiin hadhow. hadda anisaana u isticmaalay warqada laba jeer. warqada ku marmarisa xawaajiyada oo ku duubaysa, mid kale ku xijinay, kadib aluminiumka ku waxeynay. hadda mid koowada ku soo xire. anaka waxaa ku xirxiran doona aluminiumka 3 jeer. adi 4 waa ka dhigan kartaa. xabadii koowada hadda ku soo xire, midii labaad marooya. sidaas ugu waxeynaysa. mal rabo inuu meel dhan ka banaanaado. sidaas ku celcelinay.
dhab ku siinay waa ku riixay wuu isku dhigdhigaaba asiga dhan. kadib midkii saddexaad soo qaadanayna adi 4 jeer oo ku waxaysan kartaa dabkeena ka difaacay 3 jeer aan ka isticmaalayna. hadda mid kala soo jaranay sidoo kale dhaheena. asxaabteeda qaaliga aluminiumka wuxuu ka difaacaya dabka. asxaabteeda qaaliga hadda u jeedin dhuxush way mudoodahay. dhuxusha markay cadaato oo dambas kor ka fuulo markaas ku waxaysan doonaa waa arki doontii markaasana fiican. ani babis muu baahani bahashaas ayada ay babinaas gacanta leesas ku dhahanay waa ku babisma. hadda dhuxusha madow markay cadaan dambas camal isku bedesho kadib agshan doonaa waa arki doontiin. muhiim maahan baasha inay haystid burjika isticmaali kartaa. asxaabey waa kala fogfogeynayna waxa u banaysanayna meel aan saarano hilibka kor iyo hoosna waa ka daboolayna waa ila arki doontiin. hadda markaas u kala fogfogeyno waxa soo qaadanayna hilibkeeni aluminiumka ku soo daboolnay 2 luga sameysana lugta koobaad saana dhahay sidaan u soo dhigaa midka kalena dhinaca kala soo dhigaa waan kala fogfogeynaya. asxaabey qaybna dhuxusha waa u goglaysaa qaybna dusha sare ayaa ka saaraysaa waan arki doontiin. burjika markay haystidna sidoo kale markuu dabka ku qaxo aqta qayrka guratid marka saartid qaybka kalena dusha uga shubanaysaa. mar walba waxa haystid inaad isticmaashid waaye qasab maahan baasha inay hadday haystidna ayadana isticmaali kartaa. hadda waa u jeediin qayb hoosena waa u godolnay qaybna kor uga shubnay sidaas ugu shubnay. 2 saac ku dhaafayna 2 saac kadib waa isku soo laabanayna. hadda waa kan 2 saac kadib waa isku soo laabanay. waxaan rabnaa inaan ka bixino aluminiumka mindiya soo qaadana waa ka jaraya. warqada way kulushahay aluminiumka zaaid u kululyahay mise aad u kululyahay sidana u jeexayna waa arki doontiin warqada faa'iidada ay leedahay. aluminium bas ma fiicna inaad ku dabooshid warqadana waa muhiim. aluminiumka asiga dabka uu soo gudbinaya asima madoobaanay laakiin dabka hoos uu soo gudbinaya waxa hoos ku jira shaygu madoobaanaya. warqada u jeedin saas u madoobaanay way ka celinayaan marka hadda saas way ku difaacdabo sidaan quruxda badan oo noogu soo baxay. waxaas oo subag uu dhalaya ma sha Allah. hadda lugtaan kale kala waxaynayna sidoo kale ayadana sidoo kale oo kala jarayna. hilibka asaa marka hore zaaid wacayilna subagaas uu dhalay kadib hadda warqada ka fiiqayna midaan sidoo kale aluminiumka ka fiiqayna marka hore kadibna warqada waa arki doontii markaana waa soo diyaarsanayna. waa u jeedin ma sha Allah kan kalena sidaas noogu soo baxay uu kulul yahay. asxaabey caraftiisana ma laga sheekeyn karo ma sha Allah waaye ma sha Allah sidaan quruxda badan oo noogu soo baxay. lugna waa soo jarjaranay lugna sideeda ku dhaafnay waxa anaka ku cunaynaa rooti. hadaa rabtid adi bariis waxa rabta u sameysan kartaa. asxaabteeda qaaliga lagama sheekeyn karo inaba caadi maahan waan ka wada heli doontiin dhamaantiina. hadaadan haysanin burjiki waxaas dhan foornadaada ku sameysanay hadaa gaas istid asaa ka fudud asna waa ku sameysan kartaa. asxaabteeda u jeedin sidaan u jilicsan yahay saan u kala daadaadanaya macaankiisana lagama sheekeyn karo. lugta kalena waa idin tusaya hadda tii soo jarjara waaye tii kale oo isku taalana waa tas asna saas u kala go'aya. asxaabey inaba caadi maha wixii isha deeqa uurka deeqo. waa u jeedin sidaan u qurux badan yahay wuuna sidaan u jilicsan yahay macaankiisana lagama sheekeyn karo ma sha Allah. waan ka wada heli doontiin dhamaantiin hadaa sameysatiin dana mid kale idin sii baraaweynaya. asxaabey waxa ku cabinana ka biyahana soo diyaarsana waxa waaye afakaadhi caano mar hore idinku soo galiyay sida la sameeyo waa taqaaniin waanu fudud yahay anaka cabitaankana u soo diyaarsanay.
dhammaantiin waa ka wada heli doontiin haddaad samaystiin. asxaabteyda waa mahadsantihiin mar walba saa ii garab taagan tihiin iyo saa iigu subscribe-kii laagta iigu saartaan. shukran asxaabteyda qaaliga. kusoo dhawaada fiidiyoga xigo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.